kulan wanaagsan daawade halkan waa janaalka wararka 24 saac kuna soo dhawaada wararka aan ku hayno waxaa qayb ka ah qaramada midoobay waxay soo saartay lacagta xukuumadda Soomaaliya ay ku bixisay doorashada maamulka Koonfur Galbeed. Hogaamiyihii hore ee Xisbul Islaam waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka. Weerar culus waxa uu ku qaaday Shariif Sheekh Axmed. Madaxweynaha Soomaaliya madaxweynihii aflagaaday Soomaaliya ayuu ku tilmaamay saaxiibka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay gudaha dalka ka musaafurisay hay'ado ka shaqeynayay dhanka warbaahinta. Ra'iisul Wasaare Khayre waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda dalka Raashka ayna ku gaareen magaalada Paris ee Faransiiska. Dibaddan waxaan idinkaga haynaa Israa'iil oo duqeyn ku dishay sarkaal Falastiiniyiin ah iyo boqolaal madaafiic oo loogu jawaabay. Intii aad daawateen waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweyn. Haddii aad ku cusub tahay janaalkan subscribe si aad u hesho xogaha daahsoon ee siyaasadda halkan aan ku soo gudbino. Warkeena ayaan gudagalaynaa ee soo dhawaada. Guddiga khubarada ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo soo saaray warbixintoodii sanadlaha ah ee 2019 ayaa sheegay in xiriirka sii xumaanaya ee dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada uu halis dheeri ah uu ku hayo xasiloonida siyaasadeed ee Soomaaliya. Warbixinta guddiga ayaa lagu sheegay in xiisada labada dhinac ee maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya cirka isku sii shareeytay kadib markii doorasho aan dowladdu aqoonsanayn ay ka dhacday deegaano ka tirsan Jubbaland. Sidoo kale qaramada midoobay waxa ay soo saartay lacagii xukuumaddu ay ku bixisay doorashadii ka dhacday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Go'aanka dowladda Soomaaliya ay ku xirtay Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur ka hor doorashada ayay tiri warbixintu waxa uu dhaliyay dibadbaxyo ballaaran oo ka dhan ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya bishii December ee sanadkii 2018. Dibadbaxyadaasi intii ay socdeen ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed waxa ay dileen 15 qof qaarkood xasaanad hayay. Warbixinta ayaa intaas ku dartay in hanaankii doorashada ee Koonfur Galbeed ay sidoo kale hareeyeen eedeemo ku saabsan laaluush iyada oo xildhibaanada maamulka midba lagu bixiyay lacag u dhaxaysa 20,000 ilaa 30,000 oo doolarka Mareykanka ah sida ay sheegtay warbixinta qaramada midoobay ee soo saartay. Guddiga waxa uu helay eedeemo muujinaya in ka hor doorashada Koonfur Galbeed uu sarkaal maaliyadeed oo ka tirsan dowladda federaalku uu $200,000 oo doolar ku wareejiyay wasiirro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Warbixinta ayaana sidaas lagu sheegay. Guddiga ayaa sheegay in uu helay warbixino dhowr ah oo tilmaamaya in 82 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed loo duuliyay Muqdisho horaantii bishii November 2018 halkaas oo lagu siiyay lacag hordhac u ah oo gaaraya 5,000 oo doolar midkiiba. Waxaana sidoo kale loo ballan qaaday in lacag dheeri ay heli doonaan haddii ay u codeeyaan Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen oo ay wadatay xukuumadda Soomaaliya. Ugu dambeyn xukuumadda ayaa ku guuleysatay ujeedkii ay ka lahayd deegaanada maamulka Koonfur Galbeed waxaana hadda Muqdisho hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ugu xiran wadaadka Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo mar soo noqday afhayeenka Al-Shabaab. Waxaana sidoo kale Abu Mansuur soo noqday hogaamiye ku-xigeenka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Xasan Daahir Abeys oo maxbuus u ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa warar culus oo aan loo meeldayin waxa uu ku qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo isbahaysi adag la ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale xisbiyo siyaasadeed oo dalka ka jira. Xasan Daahir Abeys oo sanadihii u dambeeyay maxbuus u ahaa dowladda Soomaaliya muuqaal dhowr iyo 30 daqiiqo uu soo duubay waxa uu eedeyn kala duldhacay Shariif Sheekh Axmed oo soo noqday
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Daahir Aweys oo hadalkiisa u muuqday in uu ku taageerayay xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya uu horboodo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in Shariif Sheekh Axmed isagoo uu ka baxay ballamo kala duwan oo uu sameeyay shacabka Soomaaliyeed waxana uu sheegay in shacabku ugu soo gambaday diinta Islaamka isla markaana uusan ballamihii qaaday uusan ka soo bixin sida uu sheegay Xasan Daahir Aweys oo maxbuus ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya muuqaalkiis oo gaarayay dhowr iyo 30 daqiiqo waxaan idinkaga soo gudbinaynaa dhowr daqiiqo oo inta ugu muhiimsaneyd ninkii waxa weeyaan radan kale Shariif Sheekh Axmed وانا ما لسه شقيه شريف walaalow sidii Maxamed Siyaad Barre oo waxaan wax ku noqdo Maxamed Siyaad Barre meel sahlan oo ka qaatay meel baasna waa uga tigi meel sahlan oo ka wixii sahal kugu soo gala sahal kugu dhaafana leeyahay weel sahlan oo ka qaatay si waxa weeyaan meel baasna waa uga tigi soo moojid waxa marka adigana waxa la mid ah meel sahlanaad ka qaadatay meel cidlaan waad uga soo tagtay adoo waliba adigu waxaad uga downeed magaca Ilaahay aad ku qaadatay asagu magac Ilaahay waa tuur barqoo tuure waa la ogi barqoo tuure wadaadadii bahalkii diintii ku tuntay wadaadadii laayay asnaanu noogu bedelay bahalkii Moscow iska xaadiriyay hal yani wax aan nus saac ka yareeyay loo sacbinaayay meel Ilaahay uga tageen ayakiina markii uu baahan meel Ilaahay uga tageen walaalow adigana waliba magac Ilaahay aad ku qaaday magac Ilaahay markaad ku qaataan meel Ilaahay uga tagtay soo moojid meel Ilaahay uga tagtay haday tahay maartay mabdii meel Ilaahay uga tagtay rajina meel Ilaahay ku xoorto macruuf waa soo moojid ilaa hadda waxaan la yaabaa maartay dadka oo baarkii maxay ahayd dadka oo ilaa hadda oday waxa jira ciidaha iyaga cayrka ayaa dhib badnaayo qalooc badnaa markaas waxa la yiri warniyahow soo kama baqaysid la yiri dadku inay ka ku bartaan ku nacaan soo kama baqaysid markaas wuxuu yiri cusubkayga wuxuu yiri cimrigayga iyo cusubka cayra aguul yani ciidan qatala weyn ma waa maalin kasta walaalow marka adiga maartay sidii oo kale maanta hadda wax weey rag badan baa maartay kugu qatalan walaalow mabda waad xoor mabdi ilgugu aaminay Ilaahay darti aad ku qaata waad xoor ragiina waad xoor hal cidaa hodin oo halino oo nimankii ragii aad maartay maanta aad ku meel gaartay meel aad ku ogtahay ma jirto waxaad tiri maartay bahalkii maxay ahayd waxaan bixinay maartay bahalkii maxay ahayd Mooriyaana bixinay waa run waa laakiin maada bixin ragii bixiya xageed ku ogi maxaar ragii bixiya xageed ku ogi hal nin maanta oo ka haysa ma jirto hal nin oo ka haysa mabdana ma haysid ragna ma haysid midka ugu dambeeyay waxa weeye Xasan Kaan oo maartay bahalkii maxay ahayd hadii oo bahashi waati qabiila hayde 46 oo ku tirtami karay markii ugu dambeysay oo ku tirtami karay maxaa u siin weysay waa misalada aan kaaga qoostay kamid waxa weeye nimiyo maartay waxa weeye mabdana waa qumisay ragna waa qumisay dadka qatali markaad warramayso waa la isleeyahay maartay bahalkii muxuu ahaa waa la isleeyahay maartay yani warka in wax ka taqaan waa laakiin warkaaga iyo ficilkaaga isma laha waa ku naqaana kuma xasdayno Ilaahay baa og inaan ku xasday laakiin waa ku aqaan dadka waxa weeyaan waa ku meel gaarta Ilaahay ka baqulaalo Xasan Daahir Aweys ayuu ahaa muuqaalka aad daawanayseen sida aad dhageysanayseena eedeen kulul u jeedinayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed
warkeena ayaad weli daawanaysaane madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu saaxiibka Soomaaliya ku tilmaamay madaxweynihii aflagaadeeyay jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya Yoweri Kaguta Museveni. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qaybgalaya shirweynaha qaramada midoobay ee dadweynaha iyo horumarka oo lagu qabtay Nairobi ee xarunta wadanka Kenya, waxa uu shir duceed la qaatay Yoweri Museveni oo ah madaxweynaha wadanka Uganda. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu la kulmo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, waxaana uu intaas ku daray in Museveni uu yahay saaxiib weyn oo Soomaaliya ay leedahay, isla markaana ay ka wada hadleen xiriirka iskaashi ee arrimaha gobolka iyo labada dal. Fariintan uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ku qoray boggiisa gaarka ah ee Twitter-ka ayuu ku sheegay in sidoo kale madaxweyne Yoweri Museveni ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa saaxiibtinimada iyo iskaashiga faa'iido wadaagga ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Uganda. Ciidamo badan oo Ugandees ah ayaa ku sugan Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose, iyagoona ku howlgala magaca AMISOM ee nabad ilaalinta Soomaaliya. wasiirka wasaaradda warbaahinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa hakiyay shaqooyinkii ay dalku ka hayeen laba hay-ado warbaahineed oo ka howlgali jiray gudaha magaalada Muqdisho iyo gobolada Soomaaliya. hay-adahaas waxaa ka mid ah hay-adda Media Inc oo horumarinta warbaahinta ka shaqeysa. wareegta ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta Soomaaliya una ku saxiixan yahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa lagu shaaciyay in la hakiyay shaqooyinkii ay dalku ka hayeen labadaas hay-adood. sababaha shaqada looga hakiyay labada hay-ado warbaahineed ayaa lagu sheegay in ay tahay in ay raaci waayeen nidaamka ay wasaaraddu u dejisay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha warbaahinta ee dalka gudihiisa ku sugan. labada warqadood ee lagu hakiyay labadan hay-adood ayaa waxaa loo diray xafiisyada hay-adahaasi ee Muqdisho, waxaana lagu wargeliyay in dalku aysan ka howlgali karin, sidaas darteedna ay dalku iskaga baxaan. wasiirka koobaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu magaalada Paris ee xarunta wadanka Faransiiska kulan kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda wadanka Ruushka Sergey Lavrov. Khayre iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ayaa dib u xaqiijiyay sida ay uga go'an tahay in labada dal ay ka shaqeeyaan horumarka iyo sidoo kale dhanka amnigana ay iska kaashadaan. Moscow iyo Muqdisho waxa ay xaqiijiyeen in si wadajir ah ay ugu wada shaqeeyaan arrimaha kala duwan ee wadamadu ay iska kaashadaan. Xasan Cali Khayre ayaa ku sugan magaalada Paris ee xarunta wadanka France, isagoona halkaas kaga qaybgalaya shirka nabadda Paris oo wadamo badan oo Afrikaan ahi ay ka qaybgalayaan. gabagabada warkeena ayaan joognay dibadda qodobada ugu waaweyn ayaan aadaynaa. ciidamada Israa'iil ayaa duqeeyay xarun uu ku sugnaa sarkaal Falastiini ah, waxaana la sheegay in sarkaalkaas lagu qaarijiyay weerarka Israa'iil ay ku qaadeen xaruntaas sarkaalka uu ku sugnaa. qaarijinta sarkaalkan waxaa amray ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu, waxaana weerarkan lagu dilay Bahaa Abdulcabaa, waxaana uu ahaa sarkaal Falastiiniyiintu ay ku tashtaan. sidoo kale kooxda islaamiga ah ee Falastiiniyiinta ayaa gantaallo waxay ku garaaceen gudaha wadanka Israa'iil. guud ahaan baahinteena subax intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. haddii aad ku cusub tahay channelkan, subscribe dheh si aad u hesho xogaha daahsoon ee aan soo gudbino. warka mid lacayna intaan ku kulmi doono nabadiino.